السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب قيمة بدن كسر بعد قيبتي لبعد قصة قبل يراد تونيا qaybtii koobaad ee qisadan waxay noo maraysay raggii FBI-da oo ku guuleystay in ay gacanta ku soo dhigaan ninkii Franklin Floyd ahaa iyagoo ugu dambeyn isjiid iyo muddo xabsi dheer qaadatay oo suura gashay in lagu xukumo ninkan 52 sano oo xabsi ah balse raggan oo iyagu weli aan ka quursanin misna ku raadinaya Franklin Floyd dambi cusub oo keenaya in xabsi daa'in ah lagu xukumo ayaa maalmo kadib waxay gaarigiisii qaybta hoose ka soo heleen feel uu ku jiro sawirro aad u badan oo meeshaasi lagu sharooteeyay sawiradan ayaa waxay ahaayeen sawiro isugu jira kuwa xun oo jirdil ah iyo kuwa qaqaawan oo uu ka qaaday habla yar xilli uu malaha qofsi kula kacayay waxaana gabdhahaasiiba ka mid ahayd Sharon ama Tonya laftirkeeda inkastoo sawiradan ay aad u badnaayeen misna gabdho badan uu ka qaaday waxaa jiray hal sawir oo si gaar ah u soo jiitay dareenkii FBI-da gabadha sawirkan ka muuqatay waxay ahayd qof aad loo jirdilay oo dhiigaysa sidoo kale qaawan waxayna hubaal u haysteen in marnaba aysan macquul ahayn in gabadhan ay nooshahay maadaama qaabka markaasi loo jirdilayba ay ka muuqatay dhowr bilood ka hor marka sawiradan ay gacanta ku soo dhigayaan qoladii FBI-da ayaa shirkad ka howlgasha dhismaha laamiyada oo project laami dhisid ka wada gobolka Florida ayaa waxay dhinaca laamiga ka heleen lafa qof meeshaasi lagu duugay markiiba waxay lafihii lagu sameeyay taxliilinta autopsiga taa oo ay ku ogaadeen in qofkan dhinaca dambe ee madaxa loogu dhuftay 2 xabad taa oo keentay in uu ku dhinto sidoo kalena ay ahayd gabar qoladii FBI-da oo sheekadaasi la socday ayaa sawirkii gabadhii ay hayeen waxay markiiba u direen raggii taxliiliyay meydkii gabadhaasi laga helay dhinaca wadada wax badanba ma qaadan oo isla markiiba waxay soo saareen in qofkan uu yahay isla meydkii lafihiisi laga helay dhinaca laamiga gabadhaasi meydkeedii meeshaasi laga helayna cid kale ma ahayn ee waxay ahayd saaxiibadii Sharon ee Cheryl Comeso oo iyana meel ay jaan iyo cirib dhigtay la weysana markan maadaama dambi cusub oo hor leh lagu soo helay Franklin waxa lagu celiyay maxkamad cusub waxaana lagu guuleystay in markan lagu xukumo xabsi daa'in ah marna uusan ka baxaynin ilaa uu ka dhinto hadeer maadaama Franklin lagu hubsaday xabsi mar dambana uusan fursad u helaynin in uu ka soo baxo midaasna ay tahay midii ay FBI-du ku raadinayeen ninkan qoladii baaritaanka waday kiiskan waxay ku qasbanaadeen in ay kiiskan ka tagaan oo halka ay ku joojiyaan balse marna kiiskan ma ahayn mid dhameystiran waxa jiray arrimo qasab ahayd in dib loo furo oo ugu muhiimsaneed halka uu Franklin geeyay Michael hadii uu iibsaday canugii hadii uu nool yahay ama hadii uu bawaa hore ku daray dadkii uu dilay sidoo kale dib ugu laabo gabadhii yareed ee muddada 20 sano ahayd oo ku xabisay gurigiisa sidii uu doonana ka yeelan jiray hubaal ayadoo laftirkeedu aysan ka warhaynin cidda ay tahay waayo Sharon Marshall halkee ayuu Franklin ka keenay gabadhaasi iyadoon jawaabo taam ah loo helin su'aalahaasi marna kiiskan ma ahayn mid soo afjarmaya waxaana muhiim ahayd in la helo qof ka salgaari kara arrinkaasi nasiib wanaag sanado kadib waxaa la helay qof isku dayaya in arrinkaasi uu ka salgaaro dhowr sano kadib mar la marayo sanadii 2002 qoraal buug oo lagu magacaabo Matt Pickback ayaa qisadii Sharon ku arkay website lagu daabaco qisooyinka dadka aan hiwaayadooda ama shakhsiyadooda saxda ah la garanaynin iyo dadka la la'yahay oo geeri iyo nololba aan lagu haynin kadib markii Matt uu ku arkay qisada gabadhan sida uu sheegay aad ay uga naxay sidoo kale wuxuu aamini waayay in meeshaasi looga tagay oo marna aan dib loo eegin misna aan laga salgaarin qisadeeda markiiba wuxuu go'aansaday in qisadeeda uu ka qoro buug raadiyana cidda saxda ay tahay gabadhaasi yar iyo sidoo kale halkii uu ku dambeeyay wiilkeedii yaraa ee Michael Matt wuxuu markiiba la xiriiray agent Joe Fitzberg oo isagu ahaa agentigii FBI-da ee kiiskan gacanta ku hayay hor inta aan la xirin agent Joe xilligan wuxuu noqday qof howlgab ah oo ka fariistay shaqadii FBI-da balse marna ma iloobin kiiskii gabadhan isla markii uu Matt kala hadlay arinkii iyo in uu rabo in uu daaha ka qaado dhacdadan Joe ayaa si wacan uga aqbalay si lamid ah dadkii markaa joogay Matt wuxuu asaga naftirkiisii xalka kaliya ee sheekadan looga salgaari karo u arkayay in uu wareysi ka qaado Franklin oo wali ku jira xabsigii maadaama isagu uu yahay cidda kaliya ee og xaqiiqda Michael iyo Sharon saadarteed wuxuu fasax ka doontay qoladii FBI-da in uu wareysi ka qaado Franklin dhanka kale Franklin isagu wuxuu sugayaa maalinkii uu dhiman lahaa malaha markan rajadii ahayd in xabsiga uu ka bixi karo wuu dhigay balse isla markii loo
loo ogolaaday in uu waraysi siin karo Matt waxa gashay rajo cusub. waraysigii ma noqon sida uu filanayay Matt, taa oo ahayd in uu Franklin bilaabo qirashada waxyaabihii uu geystay ama in uu daaha ka qaado su'aalahaasi aan jawaabtoodii la haynin. taa cagsigeed wuxuu bilaabay in uu noloshiisa iyo qaab xumideedii ka hadlo, isagoo ka bilaabaya xilligii ay hooyadii kaga soo tagtay oo ay isaga soo tuurtay iskuul kaniisadeed oo ku yaala gobolka Georgia ee Mareykanka, halka uu kala kulmay jirdil iyo farxumeyn aad u xun. wuxuu intaasi sii raaciyay qisooyin dhaadheer oo kaga hadlayo dhibaatooyinkii kale ee uu nolosha kala kulmay. Matt wuxuu arki karay meesha ay nolosha ninkan ka soo xumaatay iyo halka uu kala yimid naxariis darrada, balse isagu uma soconin in uu dhageysto sheekada ninkan, misna isku dayayay in uu sheekadiisii ka soo celiyo oo uu wax ka weydiiyo Michael halka uu ku dambeeyay iyo Sharon cidda ay tahay. taa oo isla markiiba ka careysiinaysay Franklin oo bilaabay in uu si carro ku jirta u yiraahdo waxba ma ka ogi ayaan ku yiri, miyaanad qisada aan kuu sheegayo dhageysanayn. ilaa ugu dambeyn Matt uu waraysigii ka soo dhameeyo maadaama uu xog faa'iido leh ka heli waayay ninkan. se ugu dambeyn sanadii 2004 ayuu Matt buuggii uu ka qoray qisada gabadhan soo fasaxay. xaqiiqda marka laga hadlana wax weyn daaha kama qaadeen xilligaasi, balse buuggan ayaa mar kale dib u kiciyay shacbiyadda dhacdadii Sharon, iyadoo meel kasta laga bilaabay hadalhaynteeda, taa oo keentay in ay la soo xiriiraan dad aad u badan. mar laga joogo ku dhawaad 1 sano xilligii buuggan uu publish gareeyay waa sanadii 2005 ayaa Matt waxaa soo gaaray fariin ay naftiisu rumaysan weyday, fariin loogu soo diray emailkiisa iyadoo dhanna ka kooban hal su'aal: DNA-ga gabadha ay dhashay Sharon Marshall ma kaa caawin doonaa in aad jawaabteeda hesho? waxaa fariintan soo dirtay gabar ay dhashay Sharon oo lagu magacaabo Megan. Mary DeFrance oo ahayd hooyadii soo korsatay Megan ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxay buuggii Matt uu qoray ku aragtay walaasheeda. markii ay buuggii kala furtay oo ay xoogaha akhrisayba waxay aamini weyday sawirada ay indhaheeda ku arkayso. waxay si cad u xasuusataa maalinkii ay Sharon ama Tonya iyo Clarence kula kulantay xafiiska ilmaha lagu wareejiyo sanadii 1989. waxay markaa rabeen qof ka qaata ilmaha yar markii uu dhasho, maadaama sida uu Clarence ku andacoonayay aysan awoodin in ay canug kale korsadaan. waxay aad xasuusataa sida uu u ekaa wajiga Sharon oo cabsi badan ay ka muuqatay. intii ay joogeen xafiiskana waxaa kaliya hadlayay Clarence oo iyadu marna afka kalama furin. in DNA-ga saxda ah ee Sharon la helo waxay ka dhigneed daaqad hor leh in la furi karo. ma aha oo kaliya ilmaha ay dhashay sida Michael in la heli karo, ee sidoo kale cidda ay iyadu ka soo jeedo iyo qoyskeeda oo kale in la heli karo ayay ka dhigneed. sanadii 2011 ayaa hay'adda National Center of Missing and Exploited Children oo iyana ka howlgasha caruurta la yahay ayaa kiiskii Michael gacanta ku dhigtay. hadeer wax waliba way ka duwanaayeen sidii hore oo markan waxay gacanta ku hayaan DNA-ga walaashiisa. taa waxaa ka sii muhiimsaneed oo ay haysteen Franklin oo ku jira maalmihii ugu dambeeyay ee noloshiisa. wadna dareemi kartaa qof noloshiisa ka sii rajo dhigay iyo xaaladiisa. isla markii kiiskan dib loo furayba dambibaarayaal ka socda FBI-da ayaa loo diray in ay Franklin ka hadal siiyaan. markan uma soconin in ay la sheekaystaan, waxay jawaab u rabeen oo kaliya 3 su'aalood: waa kuma Sharon Marshall, hiwaayadeeda saxda ah ayay tahay, Michael halkeed geysay. kadib markii ay raggan xabsiga ugu tageen Franklin oo ay bilaabeen in ay weydiiyaan su'aalihii, lama kulmin qof cusub oo marna isma uu bedelin. si kasta oo ay isugu dayaan, markii ay Sharon iyo wiilkeeda wax ka weydiiyaanba wuxuu aadaa sheekooyin aan loo joogin, taa oo sida aad filan kartaaba sabarka ka dhammaysay raggii baaritaanka waday. midda la yaabka badneyd waxay ahayd Franklin raggan uma haysan in ay yihiin FBI-da, wuxuuba ku rajo weynaa in ay yihiin qareeno isaga u doodaya oo raba in ay xabsiga ka sii daayaan. isla markii ay fahmeen in ninkan uuba u haysto qareenadiisa, mid ka mid ah dambibaarayaashii ayaa ku yiri, war anagu ma nihi qareenadaada. Franklin oo niyajab iyo xanaaq wajigiisa ka muuqda ayaa yiri, oo yaa tahay marka garacyow? taa oo ay ugu jawaabeen, waxaan ahay saraakiil FBI. inta uu yar carooday ayuu ku yiri, maxaad rabtaa marka? iyagoo ugu jawaabay, waxaan dib u furnay kiiskii Michael. taa oo si jees ah ku jirta uu ugu jawaabay, haddii aad iska xirtaan waan idinkaga mahadlin lahaa. intaa kadib waxay raggii FBI-da bilaabeen in ay cadaadiyaan ilaa uu ka ilmeeyo oo uu bilaabo in uu isku dardarsamo, iyagoo ku soo celcelinaya sideed ku dishay canuga yar. hal mar inta uu rajo dhigay oo dhankooda uu soo eegay ayuu ku yiri, waxaan ka toogtay madaxa dambe si aan ugu fududeeyo geerida, weliba 2 goor. wuxuuna sheegay in meydkiisii uu ku duugay xuduudda 2 gobol ee Oklahoma City iyo Texas, taa oo si kasta ay ugu raadiyaan lafihiisii ay heli waayeen markii dambe.
kadib markii ay ka soo saareen jawaabtii wixii ku dhacay Michael waxa sidoo kale muhiim ahayd in ay ogaadaan qofka ay tahay Sharon. nasiib wanaag markan way ku khiyaameeyeen oo isagoo aan filanaynin ayay hoosta ka soo geliyeen su'aashaasi. ugu horeen waxay ogaayeen haddii ay si toos ah u weydiiyaan yay tahay Sharon in uu ka cararayo su'aashaasi, balse taa cagsigeedii waxay bilaabeen in ay noloshiisii hore wax ka weydiiyaan. wayna fududeed midda oo ninkan wuxuu markasta jeclaa in uu noloshiisa ka sheekeeyo, quruxda muuqiisa uu qabo iyo sida uu ahaa darbal bas aan caadi ahayn markii uu yaraa. wuxuu iska sheekeyntiisii sii wadaaba wuxuu bilaabay in uu raggan kaga sheekeeyo gabar uu la kulmay xilliyada uu darwalka ahaa oo lagu magacaabo Sandy, gabar iska dhalinyar ah balse xilligaasii sidatay 3 caruurood. qoladii FBI-da oo sheekadiisii si wacan u dhuuxaya ayaa hal goor waxay weydiiyeen canuga ugu weyn ee ilmahaasi yuu ahaa, taa oo asagoo la yaaban su'aashooda uu ugu jawaabay waa gabadhan aad hadeer inta u joogtaan misna aad i weydiinaysaan cidda ay tahay oo magaceeda muxuu ahaa. markaas ayuu yiri Susan Savakis. qoladii dambibaarayaashu waqti badan iskama dhumin la sheekaysigii Franklin, isla markii ay ka soo tageenba waxay dib ugu laabteen feelalkii dhalashada gabadhan oo ay ka soo heleen magaca labadeeda waalid, Sandra iyo Clifford. taana waxaa ka sii muhiimsaneyd in ay soo ogaadeen in ay waalidiintan labadooduba ay weli nool yihiin. waa run waxaad maqashay, waxaan oo dhan inta ay dhacayeen waxay ahaayeen kuwa nool isla Ameerikana jooga. waxaa laga yaabaa in ay su'aalo badan ka guuxayaan, sidee ku dhacday in gabadhooda uu ninkan gacanta ugu dhigo, maxaa dhacay oo ilmahooda ay uga hareen. sug waxba ha ka degdegin, aniga ayaa ku sheegayo intaaba. marka hore aan kaga soo bilaabo sheekadan iyo bilowgeeda. Clifford iyo Sandra waxay isla dhigan jireen college. waxay kulmeen iyagoo 17 jir ah oo markaas sida xiriir ku bilaabeen. sanad kadib markii ay wada kulmeen waxa u suura gashay in ay isguursadaan. waxba kama soo wareeganinba Sandra waxay Clifford u qaaday uur. isla xilligan ay Sandra leedahay bilaha ugu horeeyay ee uurkeeda, Clifford wuxuu ka mid ahaa ciidamada Mareykanka ee loo qaaday dagaalkii Vietnam, taa oo sida ay sheegtay Sandra ay aad ugu dhibtootay nolosha maadaama ninkeeda uusan la joogin, isagoo ka maqanna ay dhashay canugeedii ugu horeeyay ee Susan. muddo kadib markii uu Clifford ka soo noqday dagaalkii Vietnam ee uu yimidba, xaaskiisii Sandra waxay xiriir la waday oo ay wada kulmayeen nin kale, taa oo keentay in ninkii kale ay uur u qaado. inta uu kaliya ma ahayne waxay rabtay in Clifford uu furo, sidii ayna ku kala tageen isaga iyo Sandra. waxayna markii dambe dhashay 2 canug oo kale, Amy iyo Allison. Sandra markii ay kala tageen iyada iyo Clifford waxay damacsaneed in ay guursato ninkii kale ee ay 2 canug u dhashay, balse nasiibku ma saacidin oo iyagoon isguursanin ay kala tageen. maadaama single mother ay sidaa ku noqotay, Sandra iyo 3 canug waxay sidii ku degeen basaska waaweyn ee guryaha laga dhigto, balse qadartu waxay u haysay qorshe ka xun midda oo duufaan xilliga aad u burburisay gobolkii ay degnaayeen ayaa baskii guriga u ahaa qashinka ku dartay. markanna waxay ku soo dhacday bannaan cidla ah. ninkii qabay way kala tageen oo waxay ku qasabtay in uu furo kii iyadoo la qaba uurka u yeelay oo ninkeeda ay uga soo tagtayna markii dambena wuu isaga tegay isagana. waa iyada keligeeda oo 3 caruur ah luqunta ku sidata. inta ay garan weyday wax ay qabato ayay ugu dambeyn go'aan ku gaartay in ay ilmahan geyso xanaanada si reero kale oo awood leh ay u korsadaan. sidii ayna samaysay oo ilmaha yaryar qoladii xanaanada ay ugu wareejisay. kadib markii caruurtii la keenay xaruntii xanaanada, waxay markiiba la xiriireen aabihii dhalay Susan Savakis ee Clifford, iyagoo u sheegaya in xaaskiisii hore ay ilmaheeda meeshan kaga tagtay. waxay weydiiyeen haddii uu rabo in caruurtan uu korsado, taasoo Clifford uu ku yiri gabadhayda Susan waan la wareegaya oo aniga ayaan korsanayo. balse waxaa arrinkii ka diiday qoladii xanaanada oo ku yiri mudane fiiri, ilmahan meel loo kala reebo ma jirto, gabadhaada iyo 2 canug kaleba isku qaado ama midkoodaba ma helaysid oo gabadhaada sidaas ayaad ku weynaysaa. Clifford wuxuu garan waayay meel uu wax ka bilaabo. sida uu sheegay xilliga asagu wax shaqo ah ma haynin oo dadkii dagaalka Vietnam wax waliba ku waayay ayuu ku jiray, wuxuuna iskala noolaa waalidiintiisa. waa 23 jir. inta uu dib ula xiriiray qoladii xanaanada ayuu ku yiri gabadhayda kaliya haddaysan ahayn lama wareegi karo oo tabartii aan ku korin lahaa caruurtaasi oo dhan ma haayo. reer awooda oo korsan karana waad siin kartaan. meeshaasi ayaana ugu dambeysay oo dib dambe uma maqlin
gabadhiisa iyo meesha ay ku nooshahay. dhanka kale Sandra maadaama ilmaheedii ay meeshaasi kaga soo tagtay waxay ku riday qalbi jab aad u weyn waxayna garan weeday meel ay qabato iyadoo ugu dambeyn iska soo aaday kaniisad yar oo xaafadoodii meel ka dhaweyd ku agtaala iyadoo markaasi ku hami weyn in meeshaasi ay saga nasato ducaysato duruufta ay jirtona ay kaga bariso in uu ka saaro Jesus iyo waxyaabaha ay caabudaan almuhim sida ay iyadu sheegayso iyadoo kaniisada ku jirta misna ducaysanaysa aadna u ooynaysa ayaa hal goor qof ka taabtay garabka wuxuu ahaa nin iska dhalinyar ah oo u hadlaaya si macaan badan wuxuuna bilaabay in Sandra uu qalbigeedii dajiyo wuxuuna markii dambe ku yiri waxba ka walwalin rabbi ani ayuu ka soo diray waxaan diyaar u ahay in aan ku guursado ilmahaagiina aan kula koriyo oo aan reer cusub aasaasano ninkan wuxuu ahaa Franklin Floyd alore muddo kadib way isguursadeen oo reerkoodii ay sidaa ku aasaasteen Sandra waxay dib ugu laabatay xaruntii oo ilmaheedii ay ka soo wadatay balse maba qaadaninba wax badan oo iyaga oo aan wax badan ba isla noolaanin ay ogaatay in ay god u gashay nin aan caadi ahayn mar waliba oo wax yar ay hadalkiisii khilaafto aad ay uga caroon jiray wuxuuna marar badan qoorta uga qaban jiray midi isagoo ku leh iska jir hadii aad isku daydo inaad iga tagto oo aad nolosheeda ka baxdo waan ku dilayaa oo kale wixii ay noloshooda sida isaga socoto isqabqabsi joogta ah dagaal muddo kadib Sandra ayaa waxay gashay xabsi iyadoo meeshaasi ku soo qaadatay 30 maalmood ama hal bil kadib markii xabsiga laga soo daayay oo ay gurigeedii timidna waxay ugu timid gurigii oo cidla ah oo Franklin wuxuu la baxsaday caruurtii isla markiiba waxay aaday qoladii booliiska oo ay arinkii u sheegtay kuwa oo iyagana hadalkii u soo gabagabeeyay hadii ninkan aad sheegayso aad isqabtaan anagu idama xalin karno hawshaasi maxkamadda ayaa shaqo ku leh dhanka kale Franklin wuxuu Amy iyo Allison ku tuuray xaruntii agoomaha oo isla meeshii ay degnaayeen ka dhaweyd wuxuuna sidii kula baxsaday Susan wixii inta ka dambeeyayna waa taariikhdii foosh xumeed ee aan ka soo sheekeynay halka Susan ay noqotay Sharon kufsi nolol xun iyo uur kadibna hadana loo bedelay Tonya miskiintii ugu dambeyn ku dhimatay isbitaalka inta aan wax kale u gudbin waxaan rabaa inaan diiradda saaro su'aalo badan oo aan arkay dad badan oo qisadan daawaday in ay isweydiinayaan kadib markii Sandra ay jeelkii ka soo baxday oo ay aragtay in Franklin uu kala baxsaday caruurteeda kadibna labadii yaryaraa ay ka heshay xaruntii agoomada oo Susan uu ka watay maxay isaga aamustay oo isaga hartay misna aysan ugu dhabar adeegin in gabadheedii yareed ay hesho sida ay Sandra sheegayso waxay iyadu weyday qof caawiya balse taa ma ahan wax lagu marmarsiyoon kara oo xitaa sida Heather Lane gabar kamid ah gabdhihii documentary-ga wareysiga laga qaaday ay tiri aniguba 5 sano ay reerkeygii i weysanayeen ilaa hooyaday ay albaab kasta u fariisato maayarka gobolka oo ay ka hari weydo ilaa markii dambana la isoo helay ma inta oo kaliya ay sameyn weyday Sandra oo gabadheeda ay wax waliba u sameyn weyday si ay mar u hesho waxa oo dhanba ka soo tago sanado badan kadib wajiga Franklin wuxuu ku daabacnaa jaraa'idad kasta iyo TV kastaana waa laga sii daanayay meel kastaana laga sheegayay in ninkan uu haystay gabar aan la ogeyn cid ay tahay Sandra maxay la aamusneed miyaanay arag wajigiisa oo aysan garanayn soo ninkan ma aha kii gabadheeda ka qaatay oo miyaanay ku fikiraynin in gabadheeda ay noqon karto qoftan ama waxaan oo dhan lama socon oo warkaasi maba aragba waana meesha aan rabo in aan ku xuso sheeko ka duwan midii ay Sandra sheegtay oo ahayd in Franklin ay kula kulantay kaniisada haddii aad si fiican u eegtana waad iska fahmi kartaa in ay wax ka qaldan yihiin sheekadaasi macquul ma kula tahay in nin uu ugu soo galo kaniisad gabar iska oonaysa kadibna isla markiiba uu yiraahdo orod ilmahaaga soo qaado aniga ayaa ku guursanaya reer cusubna waan aasaasanaynaa sida markii dambana ay ka shaaciyeen qaar kamid ah reerkii Sandra kadib markii documentary-gan la soo daayay waxay sheegeen in Sandra aysan Franklin kula kulmin kaniisad ee ay ku wada kulmeen meelaha laga raro basaska oo ay ka qaraaban jirtay Sandra san hore u soo sheegnayba Floyd wuxuu xiliyadii ugu horeeyay noloshiisa wadi jiray bas waana mid xaqiiqda u dhow sida reerkan ay sheegayaan waxa la sheegay in gabadhan Sandra ay jirkeedii ka ganacsan jirtay kadib markii reer la'aan ay ku dhacday oo ay meel ay qabatana garan weyday kadibna ay meeshaasi kula kulantay Franklin sidiina ay ku wada sheekaysteen ilaa ay ku heshiiyaan guur sidoo kale dadka intooda badan waxay aaminsan yihiin in Sandra aysan juhdi badan ku bixin raadinta gabadheeda oo aysan markii horeba rabin in ay hesho taana waxaad xoogaha aaminaysaa markii ay married the friends hooyadii korsatay gabadhii yareed ee ay Susan dhashay ee Megan ay isku dayday in ay la xiriirto ayeeyada gabadhan maadaama dabcan ay gabadhan ayeey u tahay reerkanna dhibaato badan ay kala geysay Mary waxay islahayd laga yaabee in ayeeyadan ay rabto la hadalka gabadha ay dhashay gabadheeda balse sidaa ma noqon oo Mary markii
markii ay Sandra la xiriirtay waxa laga hor keenay waxba igama galin oo kale yani ma barabin wax xiriir ah in ay la sameyso gabadhan ay iyadu u tahay dhanka kale aabihii dhalay Susan ma garan karo wax aan ku tilmaamo si markaad u eegto waa qof aan ka warhaynin wixii dhacay waxba ugu wardambeysay maalinkii la yiri ama isku wada qaado caruurtan ama reer kale ayaa la siinayaa dabcan isagu naftirkiisii aad ay uga gaabiyay waxayna ahayd in gabadhiisii uu la socdo meesha ay ku nooshahay iyo meesha ay joogto markastaba inkastoo isagu gabadha yar ee Megan uu sida muuqata ugu fiican yahay ayadeeda Sandra wax documentary-ga qaybtiisii dambe ku arki kartaa in xitaa uu yimid doogista saxda ahayd ee gabadhiisii Susan oo ay reerkan u sameeyeen halka Sandra aysan xitaa lug soo saarin doogistaasi sheekada dhabta ah ee Susan waxay qaadatay sanado aad u badan in mar uun laga salgaaro inkastoo doorkaasi sano daah laga qaadayay waxyaabo badan oo qarsanaa haddana nasiib darro waxa weli jira dhowr su'aalood oo aan wax jawaab ah loo helin lama oga haddii si dhab ah uu Franklin ugu dambeeyay dilkii gabadhan yar ee markii hore loo haystay in uu shil yahay inkastoo xaqiiqatan marka laga hadlo ay u badan tahay in uu isagu ka dambeeyay dilkeeda oo uusan shilba ahayn sidoo kale waxa la sheegay in Susan ay 3 jeer uur qaaday mar waxay dhashay Michael uurkii ugu dambeeyayna waxay ku dhashay Megan kuma noqon karaa canugeedii saddexaad waxa fiicnaa lahayd haddii intaana jawaab waadix ah loo heli lahaa haddii aad jeclaan lahayd inaad daawato qisada gabadhan oo si ballaaran looga hadlayo misna looga sheekanayo dhacdooyinkii dhacay waxaan kugu talin lahaa inaad daawato documentary-ga ay ka diyaariyeen Netflix oo ku dhawaad saacad iyo 40 daqiiqo gaaraya waxaan rajaynayaa dabcan inaad la dhici doonto sidoo kale sheekooyin cajiib ah oo midan oo kale haddii aad jeclaan lahayd inaan ka hadalno ila wadaag waxaan isku dayayaa inaan si qurux badan iyagoo ka kooban u soo gudbiyo halkan ayaan kaga baxaya muuqaalkan fadlan ha ilaawin inaad like garayso sidoo kale asxaabtaadana aad la wadaagto waa inoo muuqaalka kan xiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh amaan allah